الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. darisku wuxuu ka bilaabmayaa aayadda 51 ee ka mid ah suuratu nisaa. waxaynu arkaynaa aayaadka iyadoo ilaahay uu kaga soo warramayay dadkii naga horreeyey la odhan jiray ahlul kitaabka ee yuhuudda iyo nasaarada ahaa dhaqamadii foosha xumaa ee ay lahaayeen oo ay ka mid ahayd inay aayaadkii ilaahay ku iibsanayeen baadi oo ay ka mid ahayd inay aayaadka beddelayeen ta'wiil aan sax ahaynna ay saarayeen. nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam mowqifka aad u foolxun ee ay ka qaateen iyo sida liidatay uga hortegeen taana ilaahay uu soo tilmaamay. waxa markaa halkan ilaahay uu kaga warramayaa waxay badiil u qaateen oo dadku had iyo jeer marka ay xaqa ka tagaan dee cidla iskama joogaan laakiin wax kaley ku beddeshaan oo aan xaq ahayn ee baatil ah. markaasaa taa ilaahay uu ka warramay waxa uu rabbi yidhi alam tara miyaanad arkayn ila aladiina kuwa uutuu la siiyey nasiiban min alkitaab qayb kutubta ka mida baa la siiyey yu'minuuna waxay rumaynayaan biljibti bahalkaa la yidhaahdo sanamka iyo wadaaquut waxa la yidhaahdo shaydaanka wayaquuluuna waxay odhanayaan liladiina kafaruu kuwii gaaloobay waxa ay ku odhanayaan haa-ulaa'i kuwaasi ahdaa iyagaa ka hanuun badan min aladiina aamanuu dadkii ilaahay rumeeyey sabiilan xagga waddo. ulaa'ika buu ilaahay yidhi dadka markhaatigaa beenta afuray aladiina lacanahum allah waa kuwii ilaahay uu fogeeyuu nacdalay waman yalcan illaah qofka ilaahay uu fogeeyana falan tajida lahu nasiiraa wuxuu hiiliye oo cadaabkaa ku habsaday ka dulqaada heli mayse. alam tara miyaanad arkayn baa ilaahay wuli markaa balla yaab waa waxa ay geysteenba aad iyo aad fool xun. waxa la siiyey qayb kutubta ilaahay ka mid ah oo tawraad iyo injiil baa ilaahay ugu deequ ku galladaystay. way ka tegeen markaa iyagii nabaduuhu waraa'a duhuurihim dhabarkooday kutubtaa ka tuureen. waxa haddaba isweydiin leh maxay ku beddesheen? waxay ku beddesheen taa ilaahay uu tilmaamay aljibtu waataaquut. markii ay culimmadu fasirayeen waxay ku fasireen bahalkaa jibtigaasina inuu yahay asnaamta caabudidda ay caabudayaan. daaquudkaasina waa wax kasta oo la caabudoon ilaahay ahayn oo ka caamsan sanamyaasha oo waxa uu noqon karaa shaydaanka mararka qaarkood waxa uu noqon karaa bani aadamka sida culimmada qaarkood ay ku fasireen nin yahuudi ahaa oo madiine joogay oo kacbubnu la odhan jiray kacbubnu ashraf oo shuruucda u dejin jiray gaalada ayaa isagana lagu fasiray. markaa waxaad arkaysaa daaquudkani inuu bani aadam noqon karo shaydaanna noqon karo saaxirna noqon karo. waa wax kasta oo la caabudo la raaco iyadoo ilaahay la khilaafayo. markaa waxa ay ku bedel qaateen kitaabkii ilaahay iyo caabudidii ilaahay ay caabudi lahaayeen aljibtu waataaquut
sidaa darteed ayaa waxa aad arkaysaa shayga ay ka tegeen qaalinimadiisa iyo shayga ay beddel qaateen xumaantiisa. waxaa kaloo ilaahay uu ku eedeeyey nimankaa yahuudda ah kitaabkaa lagu soo dejiyey halkii ay ku camal fali lahaayeen waxa uu sheegaya ummadda ay u caddayn lahaayeen ee markhaatigii la doonaya inay furaan ay furi lahaayeen may samaynin, markhaati beena bay fureen. oo waxaa jiraysay nimankii reer maka intay maka ka tagaan oo ay madiine tagaan ayay halkaa kula soo kulmi jireen israa'iiliyiinta. waxay odhan jireen ninkan moxamed la yidhaahdo imika soo baxay warkiisa maxaa nagaga kordhinaysaan? markaa waxay odhan jireen idinku reer maka haddaad tihiin maxaa qabataan? waxay idhaahdeen waxa aanu qabannaa nasilu alarxaam wa nanxaru alkawmaa wa nasqi almaa'a cala allaban wa nafukku alcaani wa nusqi alxajiij. qaraabada waannu xidhiidhinnaa, waxaannu gowracnaa geela kuruska waaweyn, biyaha iyo caanaha oo badhaxa laydhaa baannu isugu darnaa dadka haraada, dadka lasoo qafaashana iyagana waannu sii daynaa. sidoo kale dadka xujaajta ah ee beydka u soo qastiyayana waannu waraabinnaa. bal maxamed ka warrama bay yidhaahdeenoo dee waxyaabay sheegeen markaa beenahoo iyagu ay nebiga ku abuuranayaan calayhi salaatu wasalaam. dabeetana nimankii yahuudda ahaa ee markhaatiga ay ka sugayeen waxay yidhaahdeen halkay ka odhan lahaayeen nebi maxamed raaca kutubtayadu way sheegtee waxay ku jawaabeen sida aayaddani ay sheegtay haa ulaa'i ahdaa min aladiina aamanuu sabiila. waxay idhaahdeen dee haddaa qurayshtiinnanaaba ka hanuun badan kuwaa mu'miniinta sheeganaya. dadka mu'miniinta iyagu sidaa ma aha. waxa weeye marka xaqa la sheegayo way caddaynayaan iyagoo aan waxba maslaxa iyo eexaysanayn, iyaga oo aan ka cabsanaynin mid wax canaananaya canaantiisa. shayga xaqa ah sheegistiisa marka ay noqoto dadka muslimiinta ah waxaa caado iyo sifo u ah inay bayaamiyaan. maxaa yeele waxa ay dareensan yihiin halaagga ay ku dhaceen nimankaa yuhuuddu. waxa ay kalay ku camal falayaan xadiidkii nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam qofka qariya shay xaq ah maalinka qiyaamaha waxa ilaahay uu ku xakamaynayaa xakame naar ah oo ayaa ilaahay u gelinaya afka. haddaba markhaatigaa beenta ah ee dadkaasi ay sameeyeen iyo jibtigaa iyo daaquudka ay caabudeen waxay ilaahay uu kaga abaalmariyeen lacnadan. ulaa'ika aladiina lacanahum allahu waman yalcan illaahu falan tajida lahu nasiiraa. ilaahay baa nacdalay, qofka ilaahay u nacdalayna waxuu hiiliye heli mayse. ummadda islaamka ah waxa waajib ku ah haddii ay caabudayaan inay ilaahooda caabudaan keliya hadday cibaado la imanayaan. cibaadadaasoo runtii meelo kala duwan gelaysa. soonkii iyo salaadii dhammaan waa cibaado. waxaa kaloo cibaado ah sharciga iyo nidaamka ummadi ay ku soconayso inuu noqdo kii ilaahay uu soo dejiyo, isaguna waa shay rabbi loogu cibaadaysanayo. oo waa tawxiidulxaakimiya, inuu ilaahay yahay ka isagu shuruucda u dejinaya addoommahan. in addoonku uu aamino dabeetana uu taa rabbi ku caabudo waa laga maarmaan. tallaabo kastuu addoonkii qaadayo haddii uu mas-uul yahay iyo haddii loo mas-uul yahay, hadduu dhaqaale ku jiro iyo hadduu siyaasad ku jiro, haddii uu salaad tukanayo iyo haddii uu bulsho dhexdeed joogo, inta oo dhanba waa inuu waafajiyaa nidaamka uu raacayo kan islaamka ee ilaahay u dhigay. hadduu wax kale ku beddesho wuxuu noqonayaa waxaa kale aljibtu wadaaquut oo aayadda ilaahay uu ku tilmaamay. am lahum nasiibun buu ilaahay yidhi, ma waxa ay leeyihiin qayb min almulki lahaanshaha ilaahay, ma qayb bay ku leeyihiin? fa idan haddii ay waxyeelan lahaayeen laa yu'tuuna annaasa dadka may siiyeen naqiiran xuubkaa lafta timirta. am yaxsuduuna annaasa dadka way ku xaasidayaan, bal yaxsuduuna annaasa dadkay ku xaasidayaan nebigii asxaabta calaa maa aataahum allahu min fadli, ilaahay dheeraadka uu siiyey nebigii asxaabta. faqad aataynaa aala ibraahiima alkitaab, nebi ibraahim aalkiisiiba kutub baanu siinay buu ilaahay yidhi, iyo walxikmata xikmad, wa aataynaahu mulkan cadiiman, lahaansho weynna waanu siinay. halkan waxaa ilaahay uu ku xusayaa sida ay nimankani uga soo hor jeedsadeen gaalada ah ee xaqa. waxaa la moodaa inay lahaanshaha ilaahay iyo awooddiisa inay qayb leeyihiin
iyo arsaaqada uu bixinaya iyo fadliga ilaan dadka islaamka ahi wixii wanaagahee uu helaya had iyo jeer waxa aad mooddaa inay u hayaan iyagu sida ay uga xun yihiin ama ay uga warwarayaan haddii kuwani ay wax u hayn lahaayeen dadka waxay lahay aayadda uu ku caddeeyey inaanay wax alla waxay u deeqi lahaayeen jireen dadka ilaahay qasnadihiisa ballaadhan hadday gacanta ku hayn lahaayeen kuwaas ama dadka wax loogu dhiibi lahaa kuwan gaalada ah waxba kamay siiyeen naqiir ayaa ilaahay uhi faidan laa yu'tuuna annaasa naqiiran naqiirku waa laftimireedda xuubka yare ku dahaadhan ee aada u khafiifka ah ee aada u kooban oo fatiil iyo naqiir iyobuu qur'aanku markaa tilmaamaa markuu waxyaabo yaryar ka sii warramayo ilaahay run buu ku sheegay taa subxaanahu wa tacaala waxaynu ognahay aayaadkani markii ay soo degayeen gaaladii quraysheed cunaqabatayntii ay ku sameeyeen nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ee meeshii buuraha dhexdooda ahayd ayay nebiga iyo intii xigtadiisa ahayd ayay ku oodeen markaasaa waxay idhaahdeen halkaasaynu ku cunaqabataynaynaa cidi kama guursan karto waxna looma guurinayo wax raashino looma geynayo biyana cidima siin karto ilaa intuu ilaahay faraj u furaya halkaasay ku xidheen waxaa kalooaynu maanta ogsoonnahay gaaladu cidda ay garan waayaan ama ay isidhaahdaan rabitaankiinnii iyo habkaa wuxuu wadeen way ka baydhsan yihiin cunaqabatayntaasay ku soo rogaan markaasaa qofku ilaa uu sidooda oggolaanayo ay odhanayaan dhan walba waa ka xidhan yihin dee kuwaasoo arsaaqad loo dhiiba maxaad u malayn lahay markaa dadka ka sugaya inay kuwaasi wax u kordhiyaan ama isla iyaga ayaa nasri iyo wanaag ka helaysaan ayaa rabbi u caddaynayaa inay kuwaasi ku lugo-ayaan arrintan haddaba cadaawadda faraha badan ugu wacan dadkan gaaladaa waxaa ilaahay uu tilmaamay inay tahay fadliga rabbi uu siiye dadka mu'miniinta ah oo ay ku xun yihiin am yaxsuduuna annaasa calaa maa aataahum allahu min fadli fadligay dadka muslimiintii helaan had walba mid cilmi ha noqdo mid waxyi ha noqdo mid dhaqaale mid hoggaamin wanaagsan mid milatari gees walba fadliga ilaahay uu siiyo dadka mu'miniinta ah aad bay uga xun yihin waanay xaasidayaan waxyaabaha ay xaasidayeen wakhtiga aayaadkani soo degayeen waxaa ka mid ahaa sidee buu nebi maxamed u helaa calayhi salaatu wasalaam risaalad sidee buu qaa'idka u noqdaa ummaddan bal haddaba waxa ilaahay uu tilmaamay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam rasuulka ilaahay uu ka dhigayo waxay uu ku soo dejiyey inay la mid tahay uun tii aalu ibraahiim nebi ibraahim aalkiisii dee aalkiisu waxay ahaan ambiyo fara badan oo isaga ka farcanaa oo ilaahay uu ku soo dejiyey kutub ummadahana u diray faqad aataynaa aala ibraahiima alkitaaba waalxikma wa aataynaahu mulkan cadiiman markaa ibraahim iyo aalkiisii way ogol yihiin kutubta iyo xikmadda la siiyey iyo milkiga ah maxay ku diideen nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam nebi maxamed se miyaanu aabbihii khaliiluraxmaan ahayn oo nebi ibraahim miyaanu isagaba aabba u ahayn oo aanu aalu ibraahiimun ka mid ahayn nebi maxamed waa yahay markaa kutubtaa ilaahay uu siiyey dee waa tii rususha lagu soo dejinaya xikmaddanina waxa weeyaan kitaabkaasoo ilaahay uu fahamsiiyey rususha waxaa kaloo xikmadda lagu tilmaamaa al-isaabatu fi alqawli waalficl rusushaasi marka ay wax odhanayaan sida sawaabkaa inay asiibaan markay wax samaynayaanna sida wanaagsanuun inay mar walba ku soconayeen xikmaddu waxaa kalay noqonaysaa rusushaas marka ay dadka xaq u sheegayaan sida ugu fiican inay gu bayaaminayeen xikmaddaasi waxaa kalay noqonaysaa dadku markay isqabtaan si fiican oo faslul khitaaba inay u kala saari jireen mulki weyn baan ayaan siiyey buu ilaahay yidhi rusushaah dee sulaymaan ibnu daawuud iyo aabbihii daawuud waxaa ilaahay uu siiyey madaxtinimo waxaanu ka dhigay rusul muluuk oo boqorro ah wakhtigii nebi sulaymaan wakhtigii reer banu israa'iil madaxtinimadoodu ay ugu ballaadhaydna way ahayd runtii fa minhum man aamana bihi buu ilaahay yidhi waxaa ka mida kuwan yahuudda ah qaar rumeeyey nebi moxamed wa minhum waxaa ka mida man sadda canhu qaar ka sii jeedsaday wa kafaa bijahannama saciiraa naarta jahannamaba la idhaahdaa holocnimo ugu filan iyo cadaab haddaba way kala baxeen baa ilahay yidhi kuwan ahlu kitaabkaoo qaar way wanaagsanaadeenoo rumeeye nebiga qaarna way ka sii jeedsadeen kuwa ka sii jeedsaday naarta saciiro la idhaahdaan ku abaal marin doonaa buu ilahay yidhi cuqubana taasaa ugu filan
ilaahay baa soo xusay halkaa hore ilmo bani aadam inay kala duwan yihiin xagga marka la eego rususha ilaahay uu soo dirayo qaybina way rumeeyeen qaybina way ka gaaloobeen waana labada dariiqo ee basharku uu kala marayo dad ku daba fayla shayaadiinta oo dawaaqiidda iyo jibtiga iyo daaquudka raaca iyo dad muslimiin u noqdo oo u hoggaansama ilaahooda waa labadaasun waana ta ilaahay uu ku soo tilmaamaya fa minhum man aamana bih wa minhum man shadda canh wa kafaa bijahannama saciiraa qayb rumaysay baa ka mida rasuulka iyo qaar ka gaaloobay waa labadaasun bal waxaad eegtaa halkan labadaa qolo abaalmarintoodu sida ay aad iyo aad ugu kala fog tahay ee runtii qolana marka ilaahay uu ka warramayo jidhidhaco jidhkaaga ay gelaysa iyo qabandhacyo oo aad u dareemayso halaagga iyo balaayada ku weeran kuwa ee ku habsatay qolana marka ilaahay uu ka warramayo abaalmarinta uu siiyey farxad iyo hanqaltaag ayaad u yeelanaysaa nicmadooda waa qofkii aayaadku ay dareen ku samaynayaan wey inna aladiina kafaruu biaayaatinaa buu ilaahay yidhi dadka aayadaha yaga ka gaaloobay sawfa nusliihim naaraa hadhow baanu gelin doonaa naar aad u weyn kullamaa nadijat juluuduhum mar kasta oo ay madhato jidhkooda iyo hargahoodu baddalnaahum juluudan hayrahaa waxaannu u cusboonaysiinaynaa jidh iyo harga aan kii hore ahayn liyaduuqu alcadaab si ay cadaabka kulaylkiisa u dhadhamiyaan inna allaha kaana ilaahay wuxuu ahaaday casiizan xakiima mid awood leh shay walbana xikmad u yeela waaladiina aamanuu wa camiluu asaalixaat dadkii ilaahay rumeeyaa camalka wanaagsan sameeyey sanudkhiluhum iyagana waxaannu gelin doonnaa jannaatin tajri min taxtiha alanhaar jannooyin webiyaashii qaaliga ahaa sidaa hoosteeda ay u qulqulayaan khaalidiina fiiha abadaa weligoodba way ku waarayaan lahum fiiha aswaajun mudahara waxa ay ku leeyihiin jannada dhexdeeda dumar la nadiifiyey wanudkhiluhum dillan daliila hadh daa'imana waannu gelin buu lahayn labadaa aayadood ayuu ilaahay ku kala sheegay labada qaybood ee ummaddani ay tahay dadkan caalamka ku noole ay u qaybsan yihiin abaalmarintoodii qaybi waxa weeyaan kuwa cinwaankoodu uu yahay ama astaanta ay caanka ku yihiin waxa ay tahay inna aladiina kafaruu biaayaatina aayadaha ilaahay bay ka gaaloobeen kuwaas aayadahan aynu akhriyayno ee ilaahay uu soo dejiyey ee ummadda loogu tala galay inay nolosheeda dhinacyada kala duwan hagto ay hagaan aayaadku way ka gaaloobeen anna naar baan gelinayaa buu ilahay yidhi tankiirkaa naaran ilaahay uun ismi nakira ah ka dhigay annaara mu odhanoo muu macrifaynina naaran buuli waa tacdiim iyo weyni buu muujinayaa naartii haddii ilaahay uu ka warramay waxa uu tilmaamay habka ay u hafaysa ay u cunayso inuu yahay mid aad u yaab leh marka lagu shido ee lagu buufiyo jidhkoodii baa dhammaanaya jidhkii baa dib loo soo cusboonaysiinayaa loo weynaynaya naartu marka ay iyadu sii yar daftay ololkeedu yar dhinmana dib baa loo buufinaya kullamaa khabat sidnaahum saciiraa mar kastay yar dafto ololunbaa loo kordhinaya arrintan waxa ilaahay uu tilmaamay xigmaddu inay tahay cadaabka si ay u dhadhamiyaan laba arrimoodba waynu ka faa'iidaysanaynaa ta hore weeyaan min mucjizaati alqur'aan ayay aayaddu ka mid tahay qur'aanka mucjizaadka la yaabka leh ee uu sii sheegay 1200 oo sano ka hor ee wakhtigan dambe waxyaaba ka bidhaameen oo waxaa la og yahay iminka jidhka bani aadamka qaybtan kore ee guudka iyo xagga hoose waxa damqashada iyo dareenka uu ku badan yahay jidhkan kore sidaa darteed baanay isku mid ahayn xagga hoose iyo jidhkan kore damqashadiisu
oo haraggan iyo maqaarkan kore damqashada iyo dareenka ilaahay wadaacadhiga waa mid aad u heer sarreeya. waxaa markhaati u ah qofka marka qalliinka lagu samaynayo qaybta hoose iyo inta kore isku xanuun ma ah. waxaa kaloo markhaati u ah qofku hadduu isku dayo raashin kulul inuu dhadhamiyo ama uu cuno afka ayuu geliyaa iyadoo afkii uu ku gubtay oo uu xejin la'yahay ayuu isweydaariyaa oo uu liqaa xagga hoose wuu ku aamusayaa markaa. ilaahayna markuu ka warramayay waxa uu idhi jidhkaa waxaan kolba u cusboonaysiinayaa kolka uu gubto ee uu baaba'o si ay cadaabka u dhadhamiyaan dareenkaa kore si uu goor walba dhibaatadiisu u badato. iyada oo uu nebigu sii tilmaamayayba calayhi salaatu wasalaam ahlu naarka in la waaweynaynayo ilaa qofka gawskiisa oo keliya ayaa la egaanaya buurta uxud la yidhaahda buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam. qofka gawskii ku jira afkiisa uu buur la egaaday isaga maxaad u malayn intuu leegyahay? ilaahay unbaa garanaya. naartaa lagu buuxinayaa dadkaa markay soo boodday tidhaahdo yowma naquulu lijahannama hal imtala'ti wa taquulu hal min masiid. maalinkan odhan doona buu ilahay yidhi naartaa jahannamo la yidhaahda ma buuxsantay. jawaabtay bixinaysaa haa ma ahee waxa weeye wax la soo kordhinayaa ma jiraa. maxaa caalamkan ku nool dad maal haysta madaxnimo sheeganaya runtii kibir badan iyo fasaad ku haya caalamka oo ilaahay halkaa u diyaariyey sida dawaaqiidda oo kale. waxa ilaahay halkan uu ku tilmaamay in uu awoodna leeyahay ahlu naarkaa inuu ka aargoosto awood buu leeyahay xigmadna wuu leeyahay xigmaddiisaa tan keenaysa. bal ummadda qaybtii kale eg dadkii mustaslimiinta ahaa ilaahay u hoggaansanaa mu'miniinta ahaa ee qalbigoodu fiicnaa ilaahooda ku xidhnaa addoommaha dhabta ahaa waxa ilaahay uhi waaladiina aamanuu wacamiluu asaalixaat intay ilaahay rumeeyeen bay camal wanaagsanna la yimaadeen kuwaa waxaanu gelin doonaa jannooyinkaa qaaliga ah lahum fiiha aswaajun mudahara. baahidoodii raashinnimo iyo raaxo markay guteen taa xagga dumarkana ilaahay baa ka warramay oo waxa ay ku leeyihiin dumar la nadiifiyey buu lahayn. dabeecad xumo ma laha dhalmadii iyo dhiiggiiyo ma laha fudalaadkii iyo waxyaabii qofku markuu raashinka cuno uu u baahan jiray inuu meelo la tago ma laha. meesha ay ku jiraan ay ku raaxaysanayaan ma aha meeshii xaraaradda lahayd ee mukayafka iyo u baahnayd qaboojiyaha wa nudilluhum dillan daliila har daa'ima wey. ina allaha ya'murukum ilaahay wuxuu idin farayaa dadka muslimiinta haddii aad tihiin an tu'addu lammaanaat ammaanooyinka inaa u gudataan ilaa ahlihaa ciddii lahayd. wa idaa xakamtum bayna annaas dadka marka aad kala xukumtaanna an taxkumuu bilcadl inaa cadaalad ku kala xukumtaan baa ilaahay u idin faraya. ina allaha ilaahay nicimmaa yacidukum bih nicmo shay baa aad u qaaliyahoo wanaagsan yacidukum bihi uu idinku waaninayo. ina allaha ilaahay kaana wuxuu ahaaday samiican basiiraa mid wax walba maqlaya wax walba arkaya. aayaddan waxaa la yidhaahdaa aayatulumaraa. aayaddan 58 ee suuratu nisaa ka mid ah waa aayadda ilaahay uu kula hadlaya dadka madaxda iyo mas-uuliyiinta ah. aayaddan ka sii dambaysa iyadana raciyadda iyo dadka madaxda loo yahay ayaa ilaahay uu kula hadlayaa. labadan aayadood iyo aayaadka ku sii xiga waxa ay ka hadlayaan qayb aad u muhiima oo ku saabsan dadka ee runtii qaybaha ay yeelanayaan iyo noloshooda waana qaybta hoggaaminta laydhaah. ama waxa aynu halkaa ka bilaabaynaa annidaamu siyaasi fi lislaam nidaamka siyaasadeeda islaamku uu leeyahay ama asiyaasatu sharciya siyaasadda shareecadda islaamku ay leedahay waa hoggaaminta fiican ee ilaahay u dooray addoommaha. markaasaad arkaysaa iyadoo mas-uuliintii iyo madaxdii ilaahay uu la hadlayo iyo hoggaamintii ummadda dadkii raciyadda ahaana wuu la hadlaya. mid walba waxa uu u tilmaamayaa waajibka saaran ee ay tahay qofkaasi inaanu ku gaboodfalin ee inuu gutaa ay habboon tahay. markaasa haddana ilaahay waxa uu ka sii hadli doonaa oo uu bayaaminayaa qaar munaafiqiin ah oo aan raalli ka ahayn
manhajkan siyaasadeedada nolosha ku saabsan ee ilaahay addoommaha uu u keenay. sideedabana waxaa jirta nidaamka dawligaa markay gaaladu iminka ka warramayaan waxay idhaahdaan dawlade waxa ay ka kooban tahay 3 qaybood bay idhaah nidaamkaa hoggaaminta ee qiyaadadu: suldatu tashriic, waa suldatu alqadaa, waa suldatu tanfiid. awoodda sharci dejinta iyo awoodda xukumka ee maxkamadaha iyo qadaaga ee wax kala xukumaysa, iyo awoodda fulinta oo tusaale ahaan maxkamadihii oo kale ama maxkamad distoor ha ahaado ama maxkamadihii iyaguna kasii hooseeye kale ee madaxa bannaana waxa ay iyaga ku tilmaamayaan suldad iyo awood xagga qadaaga ah. majliskan la yidhaahdo nuwaabta ama baarlamaanaadka oo kale iyagana waa majliska tashriica bay idhahaan. kan dawladnimo ama xukuumadda oo kale iyaguna waa kii fulinta. laakiin waxa aad fahamtaa aragtida islaamku uu ka leeyahay iyo sida uu qayaxay nidaamka dawladeed. runtii ma laha islaamku kaa tashriica majlis wax jideeya ama sharciyeeya oo shuruuc isagu soo saara ma laha. maxaa yeelay ilaahay baa shuruucdii dhigay, aayaadka axaadiidta ayay ku qorayin. keliya ummadda waxaa laga doonayaa inay raacaan. sidaynu xagga dambe ku xusi doonno waxaa jiraya iyagu golo la talineed oo la talinaya mas-uulka sare iyo hoggaamiyaha dadka muslimiinta ah, waxaana la yidhaha majlisu shuuraa, majliska talada siinaya imaamka hoggaaminaya dadka muslimiinta ah. laakiin majlis dejinaya sharciga ma jiro isagu. dhinacan maxkamadaha iyo wulaaddii ama madaxdii gobolladu iyaguna way jiraan. laakiin nidaamkan ilaahay uu imika ka hadlayaa waxa weeye nidaamkan fulineed ee xukuumaddiisa leh, ee maxkamadihiisa leh, ee ciidankiisa leh, ee fulinaya shuruucdan ilaahay uu dhigay ee aayaadkii axaadiidta ku xusan. waana nidaamkii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ficil ahaan uu ku muujiyey ee hormuudka uu ka ahaa. markaasaa ilaahay waxa uu leeyahy ilaahay waxa uu idin farayaa inaa ammaanada gudataan, ehelkeedana u gudataan. markaad dadka kala xukumaysaanna sharcigaa ilaahay uu idin keenay cadaaladda aa ku kala xukuntaan. ilaahay waxa uu idinku waaniyey oo xaqaasabaa u wanaagsan, ka fulinaya iyo ka kalena ilaahay wuu kala arkayaa. aayaddaa hore ee aynu soo tilmaannay inay lagu magacaabo aayatul umaraa, sababta ay ku soo degtee waxay ahayd nebigu calayhi salaatu wasalaam maalintii maka uu qabtay ee cadowga uu ka xoreeyey, nin kacbada furaheeda haynayoo la odhan jiray cuhmaan ibnu talxa ayuu u yeedhay. miftaaxa iska keen buuli. markaa ninkii hadal aan wanaagsanayn ayuu ku jawaabay oo waxau idhi haddii aad rasuulkii ilaahay aad tahay oon ku ogahay kuumaan dhiibeen. sayid cali baa ku boodoo maroojiyo ka qaaday furihii. markaasaa ilaahay uu soo dejiyey aayaddan uu leeyahay ina allaha ya'murukum an tu'addu alammaanaati ilaa ahliha. ninkii waa loo yeedhay, sayid cali baa u tegoo idhi raalli ahaw, furihiina qaadi makawa kaas oo kolkii horeba xoog baad igaga qaadae maxaad iga raali gelin buuhi sawtaadii dhibtay. aayad baa kugu soo degtay, ilaahayna waa amar ku bixiye ammaanadii kolkii hore aad haysay inaad halkii ka sii hayso. raalli ahaw buu aayaddii buu dabeetana ku akhriyay aayaddan weeye. ninkii aad buu u mafsuuday, cadaaladdaa iyo wanaaggaas buu aad iyo aad ula cajabay, waaba rumeeyey oo mu'min buu noqday, ilaahayna wuu hoggaansamay. waxaanaynu soo nidhi nidaamkani waxau ahaa nidaamkii wanaagsanaa ee nidaamka fiican ee dadka muslimiinta laga doonayo ee ah nidaamka siyaasadeeda islaamku uu leeyahay. ammaanadaasi runtii waa 2 qaybood: ammaanatulmas-uuliya iyo ammaanatul amwaal. dadkan madaxda ammaanada lagu aaminaya waa labadaa. mid xagga mas-uuliyaddaa inuu si saxa qofku u isticmaalo oo aanu ka faa'iidaysan, iyo mid xagga maalka uu hayo ku saabsan. wilaayada ama hoggaaminta waxaa lagama maarmaana marka hore in loo xulo cid aslaxo ah oo aanay boqortooyana noqon digtaytarnimo iyo
kelitashina aanay noqon iyo xoog ku qabsi ee dadka muslimiinta intay shiraan qofka ugu habboonuun ay u xulaan sidaa darteed buu nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam man waliya min amri lmuslimiina shay-an fawallaa rajulan wa huwa yajidu aslaxa lilmuslimiina minhu faqad khaana allaha warasuulah qofka dadka muslimiinta ah u soo xula qof uu og yahay cid dhaantaa inay jirto ilaahay iyo rasuulkaba kaasi wuu khiyaameeyey markaa qofku hadduu food bixinayo iyo hadduu cid ku talinayo inuu hoggaamiye noqdo ama mansab iyo meel loo dhiibo ka ilaahay agtiisa iyo ammaanada iyo diinta ku fiican waa inuu xulaa midda labaada islaamku u arkayaa waxa weeyaan ee uu sugayo qofkan inaanu isu diyaarinin oo isagoo aanu raadsanin madaxtinimadii sababtu waxay tahay dee manfuucuu raadinayaa iyo markaa wax dan u gaara buu raadinaya qolaa nebiga u soo gashay calayhi salaatu wasalaam markaasaa waxay idhaahdeen dee meel heblaaye madax nooga dhig nebigu waxa uu ku yidhi innaa laa nuwalli amranaa haada man dalabah madaxugama dhigna arrintayadan qof kaambayn u galoo raadiyey waxaa kaloo nebiga calayhi salaatu wasalaam ka sugnaatay saxiixaynka xadiid ku jira oo tilmaamaya nebigu inuu la hadlay cabdiraxmaan ibnu samura waxa uu ku yidhi cabdiraxmaanow waa nin saxaabiya madaxtinimada kaambayni ha u gelin oo dee adigu ha raadsanin waxba ha baryin dadka haddii adigoo baryaya oo madaxtinimo raadsanaya laguu dhiibo ilaahay wuu kaaga baxayaa garabkaagana geli maayo laakiin haddii laguu dhiibo adigoon codsanin lagu garto ilaahay baa kugu saacidaya waa ammaano ay waajib tahay in la guto madaxtinimadu nebiguna calayhi salaatu wasalaam waxa uu ku yidhi ninka abidar la yidhaahdo innahaa amaana wa innahaa yowma alqiyaamati khizyun waannadaama ilaa man akhadahaa bixaqihaa wa adda aladii calayhi fiiha rawaahu muslim war madaxtinimada ma karay sida abidara way iska daa waa ammaano maalinka qiyaamaha qofka murugo iyo qoomamay ku noqon qofka xaqeeda ku qaata siday ahaydna u fuliya unbaa badbaadi nebigu waxa uu sheegay calayhi salaatu wasalaam qiyaadada ummadda iyo hoggaamintaas siyaasadeed dadku inay dayici doonaan aakhiru zamaanka sidii ilaahay uu u faray in loo wadana ay ka duwi doonaan arrintaasina calaamaadka qiyaamada ay ka mid tahay nebigu waxa uu lahaa calayhi salaatu wasalaam marka ammaanada la dayaco ammaanadaa ilaahay uhi ina allaha ya'murukum an tu'addu alammaanaati ilaa ahliha qiyaamada sug oo sidee loo dayacayaa kolkay yidhaahdeen asxaabtuna waxau idhi idaa wusida alamru ilaa kayri ahlihi faintadiri saaca mas-uuliyadda iyo hoggaaminta ummadda marka loo dhiibo qof aan ehel u ahayn waxaa kaluu nebigu xusaya calayhi salaatu wasalaam qofka ummadda hoggaaminaya ee raaciga ah ee dhimanaya isaga oo dulmi ku sameeyey ilaahay waxa uu ka xaraam yeelayaa jannada urteeda maalinka qiyaamaha waxaa jirtaa laba rukni ama laba tiiroo waaweynba u baahan tahay hoggaaminta dadka muslimiinta ahay qofka hoggaamiyaha u noqonaya labada arrimood waxa weeyaan alquwatu waalammaana inuu qofkani howlkar yahay oo hawsha uu qaban karo iyo in lagu aaminayo wax lagu soo gaadhayo nebiyullaahi shucayb inantiisii markii ay lahayd muuse inooga dhignin shaqaalaha nebi muuse waxay tidhi inna khayra man ista'jarta alqawiyu alamiin aabbow cidaad shaqaale inooga dhigta waxa u wanaagsan qof hawshana karaya aaminna ah ninkii masar ka madaxda ahaa yuusuf markuu soo dhowaynaya waxa uu ku yidhi innaka alyawma ladaynaa makiinun amiin derajana waad leedahay maanta aadna waa kuu soo dhowaynaynaa markuu malakul jibriil ilaahay qur'aanka ku sifaynaya waxau idhi innahu laqawlu rasuulin kariim dii quwatin cinda dilcarshi makiinin mutaacin hama amiin waa mid dii quwa a malagaasiyo awood leh oo xilkan iyo hawsha ka soo baxaya laguna aaminay ammaanada ee quwadanina xagga quwada marka la eego dee kolba meesha hawsha la qabanayo un qofku waa inuu kari karaa haddii hoggaamin dagaal ay tahay qof dhiiran oo khibrad u leh ayaa loo baahan yahay waacidduu lahu ma istatactum min quwa wa min ribaadi alkhayl turhibuuna bihi caduwa allahi wa caduwakum haddii hoggaamintii ay tahay
haddii qofkii hawsha uu qabanaya ay tahay mid dadka kala xukumidooda ah dee waa inuu cilmigaa ilaahay uu yidhi markaas waidaa xakamtum bayna annaasi an taxkumuu bilcadl cilmigii iyo cadaaladii waa inuu aqoon u leeyahay kitaabka iyo sunnuhu ay muujinayeen waa inuu kari karaa xukumkanuu riday inuu fulinayo ammaanadii baa markaa timid taasi waa quwadii aynu ka soo hadalnay rukniga labaad qofkani waa inuu aamiya waxay u noqonaysaa qofku inuu ilaahay ka cabsanayo bani aadamka aanu ka cabsanayn aayaadka ilaahay iyo xaqa aanu dhaafsanayn adduunyo saddexdaa arrimood marka laga helo qofkani waa qof aaminah imaaro iyo mas-uuliyadda muslimiintana lagu aaminayo saddexdaa arrimoodba aayaddana ilaahay uu ku jamciyey falaa takhshaw annaasa wakhshawn walaa tashtaruu biaayaati illaahi hamanan qaliila waman lam yaxkum bimaa anzala allahu fa ulaa'ika hum lkaafiruun ilaahay waxau idhi dadkaa ka cabsanina aniga iga cabsada aayaadka ilaahayna adduunyaha ku iibsanina saasa ilaahay aayaddaas uu ku caddeeyey inuu qofku saddexda arrimood koobsado iyadoo haddaba mawaadiicdaa iyo arrimaha ilaahay uu ka warramay baa waxau idhi ina allaha ya'murukum an tu'addu alammaanaati ilaa ahliha wa idaa xakamtum bayna annaasi an taxkumuu bilcadl marka ammaanadii waxay noqotay ammaano xagga maalka ah iyo ammaano xagga madaxtinimada ah labadaba qofkii waa in lagu aaminaya qaybtan dambe ee ah wa idaa xakamtum bayna annaasi an taxkumuu bilcadl dadka markaa kala xukumaysaanna cadaalad ku kala xukuma iyaduna waa laba qaybood xukumka shaygaa la kala xukumaya alxuduudu waalxuquuq xuduuddii iyo xeer ciqaabeedkii dadka la marinayay marka ay gafaan waa xukum cadaalad u baahan xuquuqdii qofka lagu lahaa ama ilaahay ha ku lahaada ama bani aadam iyaduna waa arrin u baahan in la xukumo cadaalad lagu saleeyo labada arrimood aynu runtii soo tilmaannay qiyaadada ama dadka muslimiinta ah hoggaaminta ah laga doonayo al-amaana waalquwa dadka intay ku kulmaan way yar tahay cumar binu khadaab waxa uu lahaa radia allaahu canh allaahuma ashku ilayka jalda alfaajiri wa cajza hiqa ilaahayo waxaan kaaga cabanayaa qof qallafsanoo hoggaamiye ah dhibaatadiisa iyo qof aaminah oo tamar daran marka labada arrimood qof kulmiste ayaa wanaagsan buu leeyahay waxaa haddaba iyaduna xusid mudan haddii aynu nidhi hoggaamintan ammaanadan cid ku aslaxoo ku habboon waa lagama maarmaan sidee loo garanayaa macrifatul aslax siday noqonaysaa waxay noqonaysaa qofkani marka hore haddii qasadkiisu uu yahay adduunyo inuu raadiyo oo isagu adduunyo uu baadi doonayo ma noqon karo hoggaaminta dadka muslimiinta ah kii ku habboonaa laakiin qasadkiisu waa inuu yahay addiinu duuna dunyaa diinta ilaahay inuu u hiiliyo oo u nusreeyo kor u qaado weeye sidaa darteed baa abuubakar sidiiq radiallaahu canhu dadka muslimiintii markii ay madax ka dhigayeen ay dooranayeen waxay ku soo saareen kol hadduu nebigu diinteennii ku aaminay oo isagoo nool uu salaada imaam uga dhigay innana adduunyadiinay waynu ku aaminaynaa bay idhaah wuxuu nebigu diri jiray calayhi salaatu wasalaam dagaalada ayuu rag madax uga dhigi jiray salaadana iyagu madax uga dhigi jiray inay markaa imaam ka noqdaan waxaan u tilmaamayay adduunyada iyo inaanay kala baxaynin qiyaadada adduunyada iyo qiyaadadan diintu inaanay kala baxayn xagga hoggaaminta marka la eego dadka muslimiinta ah kaa dagaalka ku hoggaaminaya ayuunbay tahay inuu salaadana imaamu noqdo ninbuu maalin soo booqday nebiguoo waxau lahaa allaahuma ashfi cabdak yashhadu laka salaatan wayanka'u laka caduwaa addoonkaagan ilaahay ow caafi cadowgana wuu difaaci doonaa cibaadadaa salaadana wuu gudan mucaad ibnu jabal markuu yeman u diray nebigu waxau lahaa inna ahamma amrika cindii assalaa arrimahan kugu diraya waxa ugu muhiimsan salaada waxaan oo dhan markaa waxa ay isla wada noqonayaan cibaado hoggaamintii iyo salaadii iyo dhaqaalihii intoo dhammi waa cibaadada ilaahay addoommaha u wada abuuray wamaa khalaqtu aljinna waalinsa ilaa liyacbuduun jin iyo insiba cibaadaan u abuuray waa inuu addoonkii cibaado ku jiraa markuu hoggaaminayo cibaado waa inuu ku jiraa marka uu
tijaarada iyo baac mushtari wado cibaado waa inuu ku jiraa marka uu reerkiisa ku gaar yahay dhinac walba. waxyaabo badan baa markaa xagga maalka kolka la eego qiyaadada ama qofkan hogaaminta maalka iyo dakhligiisa iyo masrafkiisa meelaha uu ku bixinayo waa arrin runtii islaamku uu ka hadlay oo macruuf ah. aayaddan dambe ilaahay waxau uhi yaa ayuha aladiina aamanuu dadkii ilaahay rumeeyo atiicu allaha ilaahay ateecayo warasuula wa atiicu rasuul nebi maxamedna ateeca wa uli lamri minkum dadka madaxda idiin ahna ateeca fain tanaasactum fii shayin haddii aad shay ku murantaan farudduuhu ila allahi waalrasuul u celiya qur'aanka iyo xadiidka ilahay iyo rasuulka u celiya wixii ay ka yidhaahdeen ku camalfala in kuntum tu'minuuna haddaad rumaysan tihiin oo rumaynaysaan billaahi walyawmi alaakhir ilaahay iyo aakhiro daalika arrimahaa la idinsoo faroo yeeshaan khayrun way wanaag badan tahay adduunyada wa axsanu ta'wiila masiirka dambe aakhirana taasaa idiin fiican. dadkii mas-uuliinta ahaa baa ilaahay uu la soo hadlay wixii waajib ahaa ee la gudbanaa uu soo tilmaamay. dadkii iyagana raciyadda ahaa ama ummaddii la hogaaminayay waajibkii la gudbanaaba halkan ilaahay uu ku xusay inay ilaahay ateecaan rusushana ateecaan dadka madaxdana ateecaan wixii la isku afgaran waayana kitaabka iyo qur'aanka loo celiyo saasaa adduunya iyo aakhiraba u fiican. waxaynu ku dhex jirnay aayadihii ka hadlayay annidaamu asiyaasi fi lislaam nidaamka siyaasadeed ee hufana wanaagsana cadaaladda ku salaysana islaamku leeyahay aw asiyaasa sharciya siyaasadda iyo hogaaminta sharciga fiican. waxa ilaahay uu ka soo hadlay mas-uuliyadaha iyo waajibaadka la gudban qofka raaciga ah ama ummadda madaxda u ah iyo xilka saaran ummadda guud ahaanba ee iyagana laga doonayo inay fuliyaan. waxyaabaha la gudban isaga waxaa ka mid a almushaawara inuu la tashado ummadda oo majlis uu yeesho la talin ah oo ah kii uu nebi maxamed tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam albitaanatu saalixa la talin fiican oo diinta iyo ummadda wixii dan u ah qofkan ku dhiiri gelinaya iyo biriga iyo wanaagga faraya. ilaahay baa waxau uhi washaawirhum fi lamr nebi maxamedow kala tasho asxaabta arrinka qofka amiirka ummadda u ahina wuu amran yahay untaasoo waajib bay ku tahy. abi hurayra waxa uu leeyay lam yakun axadun akthara mashwaratan liasxaabihi min rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam nebi maxamed aad buu u badin jiray la tashiga asxaabtiisa uu la tashanayo. waa ku ammaanay rabbi dadka mu'miniinta ah arrimahooda inay ka wada tashadaan wixii yimaada waaladiina istajaabuu lirabbihim wa aqaamuu asalaah wa amruhum shuuraa baynahum. ulul amarkaa aayadda hore ilaahay uu ku tilmaamay waa laba qaybood ee uu leeyahay atiicu allaha wa atiicu arasuul wa ulil amri minkum. waa laba qolo al-umaraa'u waalculamaa dadka madaxda ah iyo culimada labadaa weeye kuwa la leeyahay ku ateeca wixii ay soo jeedinayaan. runtii waana labada haddii ay wanaagsanaadaan ummadduna ay fiicnaanayso. waxaa kale oo iyaduna jirta imaaradii ama hogaamintii in laga dhigo ku dhowaansho ilaahay qofku ugu dhowaanayo oo aanay ahayn inuu madaxnimo iyo maal qofkii raadinayo laakiin ay tahay khaliifadii wanaagsanayd ee ilaahay dhulka dhexdiisa khaliifka kaga ahaa inuu qofkiisu diyaariyo oo wanaagga iyo samaha ilaahay ugu dhowaado oo halkaa ka keenayo. dadka umarada ama madaxdiina waa afar qaybi waxa weeye aladiina yuriiduuna alculuwa cala annaasi waalfasaada fi lard waa dad doonaya dadka inay ku kibraan awoodda madaxtinimona inay ka faa'iidaystaan dhulkana fasahaadiyaan. mufsidiin baa la yidhaahdaa kuwa ah fircoon baa hogaamiye ka ah. ilaahay baa waxau uhi inna fircawna calaa fi lard wajacala ahlaha shiyaca yastadcifu taa'ifatan minhum yudabbixu abnaa'ahum wayastaxyii nisaa'ahum innahu kaana min almufsidiin. fircoon baa dhulka ku kibray buu lahayn dadkii degganaana qaybuu ka yeelay
markaasuu harawsaday oo uu daciifsaduu tamar daraystay qaybo ka mid a reer banu israa'iil buu gumaysanayay sidaa uu qaybiyey qur-aanku uu sheegay raggii iyo dumarkii qaybinad waxa weeyaan aladiina yuriiduuna alfasaad bilaa culuw waa dad doonaya inay dhulka kharribaan laakiin awood madaxtinimo aan ku raadinayn sida dadka wax xada iyo kuwa wax boobaya iyo kuwaasoo kale qaybina waa dad doonaya inay isasaraysiiyaan iyagoon waxba fasahaadinayn way jecel yihiin in diin lagu dhaqmo oo diintu ay noqoto ta lagu camal falaya ummadda hogaaminaysa laakiin waxa uu heliyey inay iyaguna manaasib uu qofkii maslaxo gaara ku helo qaybta afraad waa kuwa ahlul jannaha ah ee qur-aanku u ammaanay lana doonaya inay dadku ku sifoobaan mas-uuliyiinta ah waa kuwa ilaahay uhi tilka daaru alaakhira najcaluhaa liladiina laa yuriiduuna culuwan fi lardi walaa fasaada walcaaqibatu lilmuttaqiin jannadaa iyo daartaa fiican waxaan u yeelaynaa dadkaan doonayn dhulka inay ku kibraan ama ay fasahaadiyaan cidhibta wanaagsan iyaga ayaa leh iyadoo marlayba labada arrimood kol haddii ay doonayaan inay dhulka wanaajiyaan dadka inay isku kibriyaanna aanay doonayn marlayba ay sarraynayaan walaa tahinuu walaa taxsanuu wa antum laclowna in kuntum mu'miniin sidaa darteed maalkii iyo awooddii madaxtinimo labadiiba qofku waa inuu niyoodaa inuu ku cibaadaysto ilaahay ugu dhowaado mana kala bixi karaan mar walba way islaasimsan yihiin labadaas haddaba ilaahay waxau idhi fain tanaasactum fii shayin farudduuhu ila allaahi waalrasuul haddaa arrin ku murantaan madaxdiinna dhexdooda ama dadweynaha iyo madaxdu ay arrin uu ka ishkaal galay isku qabtaan ilaahay iyo rasuulka u celiya markaa ilaahay uu celintiisa loo celiyaa waa kitaabkan qur-aanka ah oo shaygii laga baadho bal arrintan laga dooday muxuu qur-aanku ka yidhi rasuulkoo loo celiyaana nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waa intuu noolaa dee waa la weydiinayay oo nebi maxamed oo ka warran baa la odhanayay laakiin intan adduunyada uu ka tegey dee waxa yaalla xadiidkiisii iyo sunnihii baa yaalla sidaa darteed waa laga baadhi doonaa ilaahay baa waxau idhi in kuntum tu'minuuna billaahi walyawmi alaakhir haddaa ilaahay iyo aakhiro rumaysantihiin war arrinkaa isku afgaran weydaan u celiya waxyiga ilaahay bal waxaad eegtaa arrintan ilaahay uuna faraya inaynu yeella iyo in kale burankeennu wuu badan yahay dadka muslimiinta ah caam ahaan iyo khaas ahaan innagaba doodu way badan tahay iyo waxa la ysku haystaa ee ummaduhu ay isku haystaan ee shakhsiyaadku ay isku haystaan aad bay u badan yihiin laakiin waxaad maqlaysaa iyagoo leh xeerarkii noo celiya qaanuunka caalamiga ahay muxuu ka yidhi laakiin qaanuunkii samaawiga ahaa ama nidaamkii islaamka ee ilaahay uu addoomaha u soo xulay ulama noqonayaan addoomuhu daalika khayrun wa axsanu ta'wiila haddaa u celisaan waxay idinka ishkaal gale ee ku murantaan xaqa adduunyada way idiin wanaagsanta aakhirana halka meelaa u laabataan taasaa u fiican oo xagga masiirka iyadaa idiin wanaagsanoo dee waa ku badbaadaysa alam tara miyaanad arkay nebi maxamedow ila aladiina kuwa yazcumuuna sheeganaya annahum aamanuu inay rumeeyeen bimaa unsila ilayk xaqa lagugu soo dejiyey iyo wamaa unsila min qablik waxyigii hortaa la soo dejiyey yuriiduuna waxay doonayaan haddana an yataxaakamuu ila daaquut shaydaan inay garsoore ka dhigtaan oo ay u xukun dhiibtaan waqad umiruu waxaana la faray an yakfuruu bihi inay ka gaaloobaan wa yuriidu shaydaan ka shaydaanka laydhaha wuxuu doonayaa an yudilahum dalaalan baciida inuu lumiyo lumin fog wa idaa qiila lahum marka lagu idhaa tacaalow u kaalaya ilaa maa anzala allah waxyiguu ilaahay soo dejiyey wa ila arasuul nebi maxamed u kaalaya kolka la yidhaahdo ha idinkala xukume ra'ayta almunaafiqiina dadka gaalnimo caloolada qaba ayaad arkaysaa yasuduuna canka suduudan iyagoo kaasii jeedsanaya jeedsasho weli waxaynu ku dhex jirnaa arrimihii ku saabsanaa xukumka iyo cadaaladda islaamka iyo cidda diidaa nuqsaanta ay leedahay waa siyaasaddii sharciga ee islaamiga ahayd ee fiicnayd sababta aayaddan 60aad ay ku soo degtay waxay ahayd ninka la ydhaha zubayr ibnu cawaam iyo nin kale oo ansaarta ka mid ahaabaa isqabtay waxaa la isku qabtay beer biyood oo biyihii markaa daadka ee soo marayay
ayaa waxa lagu qaybsan jiray qofka ay ku soo horeynayaana inbuu la hadhayaa dadka ka hooseeyana inbuu u sii daynaya markaa zubayr ayay beertiisu xagga kore xigtay dabeed ninkii kale a yidhi biyihii intii aan u baahnaa ama aan xaq u lahaa ayaad iga dulmidood iga nuqsaamisay nebigu calayhi salaatu wasalaam arrinkoodii buu eegay waxau idhi zubayrow ninkan biyaha u kordhiyo u sii daa arrin aan garba loogu lahayn buu suluxnimo ku faray nebigu ninkii qalad buu fahmay zubayr mooye ninkii kale waxau idhi ninkan zubayr laydhaa nebi maxamedoo waa isxigtaan sidaa darteed baad ugu eexatay nebiguna waa xanaaqay calayhi salaatu wasalaam sidii cadaaladda ahayd iyo wixii uu zubayr xaq u lahaa ayuu markaa u xukumay oo waxau idhi zubayrow isqi yaa zubayr humma xbis ilmaa xataa yarjica ila aljadri humma arsil ilmaa'a ilaa jaarik war biyuhu intii aad xaq u lahayd zubayrow gooso oo wixii dheerna sii daa markaa kol hadduu ninkani garan waayo shaygii suluxa ahaa dee xaq wixii aad u leedahaa baan kuu xukumaybe aayaddana ilaahay uu soo dejiyey iyadoo dadka noocaasa ee xukunka nebiga calayhi salaatu wasalaam muranka ka keenaya uu canaananayo inkastoo qiso kale oo iyaduna sababu nusuul kale oo lagu tilmaamay inuu daciif yahay waxay culimmadu xusaan nin waxa isqabsaday munaafiqiinta ah iyo nin yahuudi ah ninkii yahuudiga ahaa dee wuxuu ogsoonaa yahuudi ha ahaadee haddana cadaaladdu nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam agtiisa inay taallo wuxuu idhi arrinkan aynu isku qabannay moxamed baa inoo kala xukumaya inoo gee waa madiina munaafiqiina waxau idhi maya kacbu bnul ashraf ninka la yidhaahdee yahuudiga ah ayaa inoo kala xukumaya inoo gee hadda kan yahuudiga ahi eela nebi maxamed inoo gee isagu ma ashahaadanayo laakiin kan munaafiqii wuu ashahaadanaya nebigii bay ku horreeyeen calayhi salaatu wasalaam ninkii yahuudiga ahaa buu u xukumay munaafiqiintu halkan u booday markii ay dibadda u baxeen ayuu yidhi kuma qanacsaniye cumar binu khadaab inoo gee waa cumar binu khadaab aad ogsoon tahay radia allaahu canhu cumar bay u tegeenoo ninkii yahuudiga ahaa baa yidhi dee arrintan anuu nebigu ii xukumay ninkanina wuxuu yidhi cumar inoo gee xukunkii nebigana wuu diidan yahay war ma sidaasaa buu ku yidhi cumar markaa haa buui bali yar suga buudhood seeftiisii caanka ahayd ayuu aqalka kala soo baxay cumar ninkii afka ka ashaadanaya munaafiqa ahaa ayuu khaarajiyey nebiguna calayhi salaatu wasalaam kolkii arrintii loo sheegay hadur buu ka dhigay markaa cumar arrin caana buu yidhi kelmad caana buu ku dhawaaqo waxau yidhi qofka xukumka diida dee adeer saasaanu annagu xukunnaa seeftaasaanu ku khaarajinnaa halkan haddaba ilaahay waxa uu ku tilmaamaya dadka raalli ka noqon waaya ilaahay kitaabkiisa iyo sunnaha nebiga calayhi salaatu wasalaam waxa ay xukun ka dhigtaanay isula tagaan inuu yahay daaquut iyo wax raaciddiisa xadda lagaga baxayo waa astaamaha munaafiqnimada innaga waxa dhacda dadkeennu hadday isqabtaan inaanay ku horraynin marka u horraysaba shareecadda islaamka haddii dhacdadaasi ay mid guud tahay oo ummadi ay isku haysatay iyo haddii laba shakhsi ay isku haystaanba markay ka soo caali waayaan qawaaniinta shakhsiga iyo xeer soomaaliga ayay yidhaahdaan shareecaddan ka fadhiya arrintaa waa goorma alam tara ila aladiina yazcumuuna annahum aamanuu bimaa unzila ilayk wamaa unzila min qablik bal kuwa sheeganaya inay qur'aankana rumeeyeen kutubtii horena rumeeyeen ee haddana yuriiduuna an yataxaakamuu ila daaquut wax aan qur'aanka iyo sunnaha ahayn doonaya inay xaakim ka dhigtaan bal eeg bal kuwaa la yaab miyaanad arkayn foolxumada arrintoodu ay leedahay markaa daaquut wuxuu ilaahay halkan ku tilmaamay ninkaa kacbu bnul ashraf la yidhaahdo waa nin yahuudiyahoo uu ninkan munaafiq yidhi inoo gee waa wax la caabudaya ninkaasi ilaahay inta ka sokaysaa la caabudaya sidee loo caabudaya miyaa la dul fadhiistay sida sanamkaoo kale ma ilaahayow bay ku yidhaahdeen dadku maya qawaaniintunbuu dejin jiray iyo shuruucda ka duwan tan ilaahay dabeedna waa laga qaadan jiray sidaa awgeed awoodda sharci dejinta ama suldatu tashriic ilaahay bay gaar u tahay sida salaada iyo soomkuba ay gaar ugu yihiin ciddii kula loolamaysa waa cid la caabudayo oo kaxeerka ka qaataana uu caabudaya markaa ma aha runtii arrin sokaysa ama sahlan laakiin waa arrin aad iyo aad dhibkeedu u badan yahay in dadku ay ka fiirsadaanna ay tahay
ilaahayna waxa uu waqad umiru an yakfuruu bih waxa la faray inay ka gaaloobaan shaytaankuna inuu lumiyo ayuu doonayaa marka munaafiqiinta lagu yiraahdo u kaalaya ilaa ma anzala allahu wa ila ar-rasuul waar waxiga iyo u kaalaya nabiga marka la yiraahdo waxaad arkaysaa iyagoo yasuduuna canka suduudan xagga kaaga sii jeesanaya casharku halkaa inoogu joogo. Assalaamu calaykum waraxmatullahi